السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله. caawa waxaan doonayaa inaan halkan ka bilowno barashada magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan halkan ka bilaabaynaa barashada magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. qofka jecel ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisa barashadeeda danaynaya, magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdigiisa rajaynaya, qofkaasi bishaaran u sidaa bal ila dhegayso walaal. caawa waxaan ballan qaadayaa inaad heli doontid muuqaalo ka hadlaya magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. muuqaaladaasna kuwa kooban oo aan waqti badan kaaga bixin bay insha allah noqonayaan. adigana diyaar ma u tahay inaad ilaahay garato? adduunka waxa lagu keenayba waa garashada ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay haddaad garatana maxaad faa'iida heli doontaa? insha allah waan ka hadlaynaa. nala soco, na dhegayso, insha allah mid nagu xiran na noqo. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ina lilahi 99 asmaa man axsaaha dakhala aljanna. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay 99 magac. qofkii 99ka magac kooba, micnahooda kooba, macaansada, ka fakara micnaha magacyada, jannada ayuu gelayaa. bishaara middaa ka weyn miyaad rabtaan? adduunya maxaa maanta loo tukanayaa? maxaa loo cibaadaysanaya in janno la helo soo ma? ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada isagaa gacanta ku haya. bal kuwii khayrkaa heli lahaa ee ka faa'iidaysan lahaa ee khayrkaa markaa samayn lahaa aan noqona insha allah. caawana waxaan jecelahay inaan kula wadaago 5 faa'iido 6 faa'iido oo laga helayo barashada magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. 1. magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala inay shay walba marka la baranayo qofka mu'minka waxaa laga rabaa ama qofka xiiseynaya maadada barashadayda in loo sheego faa'iidooyinka uu helayo markuu cilmigaa barto. maanta cilmiga barashada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo magacyadiisa iyo xifdiga la xifdinayo magacyadaasi maxaa lagu helayaa? 1. waxaa lagu helayaa janno. 2. qofka mu'minka waxaa mar allala markuu barto micnaha ilaahay magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo micnahooda, qofkaasi waxaa loo siyaadinayaa qofkaasi caqli uu ku garta ilaahay subxaanahu wa tacaala. qofka muxuu magacyada hadduu caqligiisa uu baro ilaahay subxaanahu wa tacaalana, qofkaasi qof magacyada micnahooda sawirta ayuu noqonayaa, awoodda ilaahayna garanayuu noqonayaa, kadibna addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala oo toosan buu noqonayaa. 2. ta saddexaad waxay tahay qofka mu'minka ah barashada uu baranayo micnaha iyo magacyada ilaahay iyo micnahooda wuxuu ka helayaa faa'iidada ah inuu alle u dhowaanayo. ilaahay buu u dhowaanayaa, ilaahay buu jeclaanayaa. ilaahay markuu jeclaadana wuxuu noqonayaa qof ilaahay ateecay. qofka markuu alla ateecana wuxuu noqonayaa qof tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala garanaya. markuu intaa noqdana qof wuxuu noqonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel. markuu ilaahay jeclaadana wuxuu noqonayaa qof camaladii ilaahay raaligelin lahaa sameeya. marka uu sameeyana qof xumaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wuxuu diiday iyo xuduuddiisa ka fogaada ayuu noqonayaa. faa'iidada 4 waxay noqonaysaa qofka hadduu magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barto uu xifdiyo, wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siinayaa waxaan wada raadinayna alla ka cabsi buu helayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ka baqanayaa, ilaahay buu ka argagaxayaa. ilaahay markuu ka argagaxana wuxuu noqonayaa qof joogteeya waajibaadka alla uu saaray. kadibna wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista agtiisa taalla rajaynaya. kadibna wuxuu noqonayaa qof ilaahay cafiskiisa raba. kadibna wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa ka baqda. 5. qofka mu'minka ah wuxuu noqonayaa markuu magacyada ilaahay
barto micnahoodana barto xifdiyana wuxuu noqonayaa qof mu'min oo ilaahay subxaanahu watacaala ku tiirsan ilaahay tala saaranaya. markuu qofka ilaahay tala saartana wuxuu noqonayaa qof arrimihiisa oo dhan ilaahay u bandhigto. arrimihiisa markuu ilaahay u bandhigtana wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu watacaala ku xamdiya nimcooyinka uu siiyey, kuna shukriya musiibada ku dhacday. wuxuu noqonayaa qof garanaya inuu ilaahay naxiim yahay, isla markaana musiibada wax allaala wixii ku dhacay oo musiibo ahna wuxuu u dareemayaa inay khayr u yihiin. faa'iidada u dambaysaan raba inaan kusoo gabagabeeyaa waxay tahay qofka mu'minka wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu watacaala u gaar yeela ama u gooni yeela inuu dembiyada dhaafo, inuu dadka cafiyo isagoo keliya. taasina markuu ogaado gudihiisa ilaahay wuxuu ku dhisayaa rajo, wuxuu gelinayaa ilaahay ama uu ku xoojinayaa rajo. markuu ilaahay ku xoojiyo rajadaasina wuxuu noqonayaa qof wanaagsan. qof wanaagsanna markuu noqdo albaabyada waxaa loo furayaa towbada. khalad kastoo ka dhaco ilaahay buu ooga toobadkeenayaa. markuu ilaahay u toobadkeenana albaabyada waxaa loo furayaa jannada iyo naxariista loo furayaa. fadlan magacyada ilaahay faa'iidooyinka ayay leeyihiin. qof ka faa'iidaysta noqo. xalqadiina soo socota ayaan ku bilaabaynaa 4 magac oo ka mid a magacyada ilaahay subxaanahu watacaala ayaan markay fursadu ii saamaxdo idinla wadaagi doonaa. fadlan kii ka faa'iidaysan lahaa noqo. ilaahay subxaanahu watacaala haddaad jeceshahay ulajeedada uu kuu keenana ama adduunyada laguu keenay waa inaad isaga caabudo. isagana ma garan kartid, mana caabudi kartid ilaa isaga aada baratid. isagana baro qudwadiisa iyo awoodiisa. baro ilaahay subxaanahu watacaala barasho ayuu kaa rabaa. ilaahay cibaadadiisa barashay u baahan tahay, axkaamtiisa barashay u baahan tahay. ilaahay subxaanahu watacaalana garashuu kaaga baahayay barasho. mid barta noqo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. sheer garee walaalada la wadaag. ilaahay khayr badan ha ku siiya. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.